sahal maaha tacliintuu subaxii alla keenaba cilmi baa soo siyaadayo saameeyo koonkee safarkii u dambeeyeyna sahal software ayaan idiin sidaayay bulshay hamoogaan marunmaanka ma ku haysay samayse mareeg ama websayda dunyadu ay xogaha ka helaan ma u baahan tahay helidda casharo muuqaal tayo sare leh ka faa'idaysiga casharo PDF-a oo tiknolojiyadu ku dheehan tahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xaro ku xeeldheer samaynta websaydada casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaano database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharo muhiim ku ah hamogaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xidhiidh telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamogaanin sahal software. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مع محمد الجامع يتيم كيسال سوفت وير والسلام إن ميل كسر كتوكتان دافع عالم كا ومركل إيه 10 دي إنه سعودي 10 كنا نحن قلنا 10 كسابسن كمبيوتر ساينس كا جارهم برنامج كله هذا ويندوز 8.1 وحنكون دورنا 8.1 وحويه ويجرين برنامج هذا فربضان أو ويب سايت كوتشرة أو كمبيوتر ساينس أو هيرر كله دون له laakiin waxaan rabnaa maadaama xisaabtii si fiican aynu isla jaan qaadnay qaab ah sidii xisaabtii oo kale in iyaguna ay u socdaan oo dib u soo bilowno barnaamijyada qaarkood barnaamijka marka Windows 8.1 markaan ka hadlayo waxaa ku jira website-ka isla barnaamijka Windows 8 isagoo ah oo 0.1 uusan ahayn version-kii ka horeeyay 8.1-ka oo dabcan hadaad kor u qaadid sida ku muuqanaysa halkan hadaad eegtid waxaa ku qoran Windows 8 casharadiisii oo dhan halkan ka baro macalinka diyaariyayna waa anigoo macalin maxamed jaac ayaa kuwaana diyaariyay marka qaabkii hore aan marka barnaamijkan usoo gelin jirnay computer science-ka ayaan wax ka bedeli doonaa haddii alla idmo qaab ah waxaynu ka dhigan doonaa foolka fool oo kale ah oo casharka marka la soo geliyo su-aalaha haddii ku dhex jiraan laga soo diyaariyo su-aalaha aad kasoo shaqaysaan wixii uga adag aad soo qortaan cashar kale intuusan bilaaban in la tixgeliyo jawaabihiinii kasoo noqday casharkii hore iyo fahamkiinii oo marka casharka su'aalaha hadda su'aalna soo weydiisaan su'aalihiin leeyahay ka soo jawaabo qaab marka foolka fool oo aynu wada qaadanayno casharadii aynu isla eegi doonaa haddii alla idmo oo jiibtii jaanta aynu rabnay inaan isla helno waa maxay haddaba Windows 8 ama waa maxay Windows 8.1 ama waa maxay Windows kuba su'aalo noocaas fara badan ay isweydiin karaysaa casharkeena marka waa hordhac ku saabsan Windows 8.1 dabcan sida aynu wada ognahay computerku wuxuu soo maray marxalad aad u fara badan aad u kala duwan wuxuu soo maray heerar aad u kala duwan muddooyinkii uu soo socday computerka waxaa leedahay kii ugu horeeyay ee dunida ka shaqeeya computer sida personal computer kale u shaqeeyay 1946 ayaa lagu sheegaa inuu soo baxay maalinba marka heer buu soo marayay 1974 waxaa leeyahay waa shirkadda Microsoft xilligii la aasaasay 81diina waxay ahayd markii ay soo saartay barnaamijkeedii ugu horeeyay ee loo oran jiray MS-DOS ama Disk Operating System barnaamijkaasi MS-DOS wuxuu ahaa yani operating system ayuu ahaa isla sanadihii 85 bilowgeedina waxay soo saareen barnaamijkoodii Windows-ka hadda aan dhiganayno versionada faraha badan soo maray kii ugu horeeyay oo ay u bixiyeen Windows 1.0 Windows 1.0 markii 85 soo saareen intii ka dambeysayna dhowrkii sano waxa soo baxay version barnaamij ayaa soo baxay barnaamijyada marka waxay soo mareen sanado kala duwan iyo heerar kala duwan bay soo mareen Windows-da marka kan aan dhigana waa 8.1 hadda casharkan duubayo aan ku jirno sanadkii 2015ka bishii 11aad oo maanta ay tahay taariikhdu 16 Windows 8.1 ka waxa ka dambeeyay Windows 10 ay soo saartay Microsoft marka inagu kaaynu hadda aan dhigayaa waa 8.1 waa Windows 10 kan hadda soo baxay ee waliba dunida si fiican aan u gaarin ee aan si fiican u shaqo bilaabin kii ka horeeyay oo ah 8.1 aynu isla eegnaa haddii aad Windows-yada mid kamid ah aad si fiican u baratidna waxaan hubaa in Windows kastoo soo baxa inaad ku shaqayn karsid oo aadan wax badan u baahnayn in lagu baro ama lagu tuso tusaale haddii aad waqti gelisid oo Windows 8 kan aad si fiican u soo baratid oo soo daawatid qiyaas 20 cashar baan ka sameeyay
waxaa kuu fududaanaya Windows 8.1 ka haddii aan sharaxayo oo ah 8ka versionkii ka dambeeyay ee soo saartay Microsoft ayaad si fudud ku baran karaysaa adiga oo aan wax waqti badan ka luminba. marka hal Windows haddaad baratid kuwa kalena way kuu fududaanayaan. waa maxay haddaba Windows ku siisa muxuu yahay? Windows-ka lagu sheegay waxa weeye marka computerkaaga aad daartid ee badhanka laga daaro computerka aad taabatid dabcan waxaad dareemaysaa computerka inuu soo kacay ayaad arkaysaa. soo kicidda computerku soo kaco wuxuu ku soo kacayaa muraayada madow ama muraayada madow aad arkaysaa qoraal ku qorqoran yahay. muraayada isla markiiba uu ka gudbayaa waxa ku soo qormaya computerkaaga Windows ku duuban hadduu yahay Windows 7 hadduu yahay Windows 8 hadduu yahay Windows XP gii kasii horeeyay hadduu yahay Windows Vista kale book note ayaan idinka soo sameynaa book baan kusoo qorayaa qaabka iyo marxalada Windows-ka ay soo mareen. marka Windows-ka uu yahay ayaa shaashada kugu soo qormaysa wax yar uun kadibna ee computerku wuxuu imaanayaa daaqadan hadda idin muuqanayso oo kale ayuu nooceedan oo kale ayuu ku imaanaya computerku imaanaya. daaqadan waxa ka qoran start ayaa ku qoran waliba daaqad kale oo ku tusi doona ayaa ka soo horeyn doonta oo la lock screen. marka daaqada lock screen soo taabto waxaan imaanayaa daaqada start screen-ka kadib markaan desktop-ka ku dhufto waxaan toos u tagayaa shaashada desktop-kaygii iyo marka application-nadii barnaamijyadii saarnaa ayaan toos u imaanayaa. computerada way kala duwan ka hadda aad isticmaalayso waxa laga yaabaa application anaga ay saaran kuwa kale oo ka duwan ayaa ku saaran oo qof kasta barnaamijyo kala duwan ay dadku isticmaalayaan. haddaba marka aad shaashadan timaadid computerkii waxaa ku diyaara inaad wax kasta ku qabsan karaysid. tusaale ahaan in barnaamijkaad inaad Google Chrome kan aan furi karayo website-ka website-da u booqdo ee QuickBook computerkayga duwan inaan kicin karayo ani barnaamij Excel kan inaan furi karayo barnaamijkan doonayaan furi karaya. marka operating system-ku ama Windows computerka ugu duuban waa software-ka isku hawlaya ee u dhaxaynaya barnaamijyada aad isticmaalaysid iyo computerka qalabka hardware-ka ku jira waxa u dhaxaynaya kala hagaya ayaa waxa leedahay operating system ayaa la yiraahdaa. okay computerka ilaa inta uu daaran yahay waxaan ku dul shaqaysanaya isticmaalaya waa operating system ama waa Windows ilaa computerka laga daminayo. muxuu ay ku kala duwan yihiin operating system iyo Windows-ku adiga maqlis hadeertan ku soo celceliyay ama dadka qaarna laga yaabo inay isku khaldaan. computerku sidiisaba waxa leeyahay wuxuu ka samaysan yahay laba shay waa hardware iyo software buu ka samaysan yahay. casharka hardware ma halka hardware uga baxa haddii aad rabto casharaha hardware-na isla website-ka ayaad ka heli karaysaa ood ka baaran karaysaa. maadaama hardware iyo software computer ka samaysan yahay hardware-ka hadda waxaan sharaxayaa markaa waa software-ro dhinaca software-ka u dhaqaaq. software-rada computerka lagu shubo ee barnaamijyada ah ee aan qalabka ahayn hardware-ka marka laga yimaado software-rada ayaa iyagana waxaa loo sii qaybiyaa laba category ama laba qaybood. nooc waxaa la yiraahdaa system software noocna waxaa la yiraahdaa application software. system software-ka haddaan soo qaato waxaa loo kala sii saaraa system software-ka oo ah software-rada u dhaxaynaya qofkan application-ka uu isticmaalayo iyo qalabkii hardware-ka computerka u dhaxaynaya oo la system software. system software-ka marka waxaa ka mid ah ama saddex ayaa isagana loo kala saaraa. saddexdaas waa si guud saddexdaas marka waxaa la kala yiraahdaa mid waa OS waa operating system midna waxaa la yiraahdaa BIOS oo waa basic input output system midna waxaa la yiraahdaa utilities ama waa drivers computer ku duuban. aan u leexdo ka aan ka hadlayo ah operating system-ka. operating system-ka computerku ku shaqeynayo ee shaqada mar computerku uu soo daaro muraayada ka soo baxay la wareegaya ee ilaa computerka la diminayo shaqeynaya ee suuro gelinaya barnaamij kasta inaan oo computerka ku duuban inaan isticmaalo ayaa isna waxaa leedahay shirkadaha soo saara ayaa la kala saarayo shirkadda Microsoft iyo shirkadda la Macintosh iyo shirkadda Linux saddex shirkad ayaa ugu caansan shirkadaha sameeya operating system-yada. saddex shirkad operating system-yada ay sameeyaan computerada ku duuban waxaa ugu caansan shirkadda Microsoft waxaan lagu qiyaasaa 91% in ka badan computerada maanta dunida saaran in ay ku duuban yihiin operating system ay leedahay shirkadda Microsoft.
boqolkiiba 6 qiyaasina waxaa lagu sheegaa ama boqolkiiba 7 aan raahday inay leeyihiin Macintosh ama Mac uu leeyahay. Linux-kuna waa boqolkiiba 1 ay qiyaas leeyihiin. marka operating system-ka aan ka hadlayna marka waa kan ay sameysay Microsoft ee maanta kombiyuutarada u badan la isticmaalayo ku duuban. operating system-yada Microsoft ay sameysay ayaa laftooda marka waxay kala leeyihiin saan hadda sheegaya daqiiqada ka hor feershano. koodii ugu horeeyay wuxuu ahaa Disk Operating System 81 ama 80kii ay soo saareen oo sameeyeen. kii ku xigana wuxuu ahaa 85tii oo waxa Windows 1.0. sidaas marka ku wadeen. operating system-yada marka had yarto ka u dambeeyay ay soo saareen waa Windows 10 ayaa leeyahay ama Windows 10 ama Windows 10. Windows 9 ma jirin. waxay soo saareen Windows 8 mid ay u bixiyeen waxaana ka dambeeyay Windows 8kii ayay yaraan 8.1. Windows 8.1ka iyo 10ka waxba uma dhaxayn. 8.1ka waxa ka horeeyay Windows 8kii. Windows 8kana waxa ka sii horeeyay Windows 7. Windows 7 waxa ka sii horeeyay Windows Vista. Vistana waxa ka sii horeeyay Windows XP. XP-gana waxa ka sii horeeyay Windows-kii la oran jiray Windows 2000. Windows 2000 waxa ka sii horeeyay Windows ME. Windows ME waxa ka sii horeeyay Windows 98. sidaa ku soco kulli note ayaan ka soo sameyn doonaa marxaladii uu soo maray ay soo mareen. oo aan sharaxayna marka waa Windows 8.1 ee aan rabnaa inaan isla jaan qaadno. computerka haddii uu ku duubay Windows 8 ama Windows 8.1 farqi badan iyaga uma dhaxeeyaan. sidoo kale haddii computerka uu ku duubay Windows 7 na waad la jaan qaadi karaysaa oo wax yar ay kula duwan yihiin. casharadana marka si taxana ayaad la socon doontaa. hadba wixii aad meeshaan sharaxay haddii aad computerka ka weydid waad soo weydiin karaysaa. halka loogu talagalay jawaabta ay ku soo qorsay halkaas ayaan waayay. haddaba inta haddaan hordhaca ku soo ururiyo inagoo si deeply qoto dheer u soo eegi doona casharada Windows 8ka. ana raba haddii aad Windows 8ka si fiican u fahanteed wax badan oo computerka inaad fahmi karaysid. waxay ciladaha computer ku dhacaya badidooda aad xalisan karaysid haddii alla idmo. balance la jaan qaadna computerka maxaa ku duuban inaad ogaan kartid. aan ku tuso horta aniga computerkayga hadda aan dul fadhiyo ee casharkan ku duubayo Windows-ka ku duuban aan isla eegno. halkee baan ka eegay Windows ku duuban. computerkayga desktop-kayga waxa saaran oo ka muuqanaya meel ay ku qoran tahay this PC. waxa laga yaabaa inay this PC ay saarnaan inay ku saaran tahay my computer inay ku qoran tahay amaba inay ku qoran tahay computer kaliya ku qoran tahay. laakiin sumadan inta badan way ka wadaagi doonaa dhalada yar iyo maskaxda yar halka agta Allah sawir noocaas wad arkaysaa oo shaashadaada ku saaran yahay. this PC-gan marka ayaan computerkayga waxaan sameeyaa right click ayaan siinayaa mouse-ka gacanta midigta ayaan ku dhufanaya button click-ta mar walba la isticmaalo ma gacanta kale ayaan ku dhufanaya. marka gacanta kale ku dhuftana waxaan arkayaa marka meel ay ku qoran tahay open manage scan for virus oo kale waxyaabaha noocan ayaad arkaysaa dabcan. scan for virus inaad arag baa laga yaabaa software-kan isku kugu dawna waa dhici kartaa. laakiin open-kaas way ka simanaa waad arkaysaa. waxa ugu hooseysa meel ay ku qoran tahay properties. properties-kaas ayaad ku dhufanaysaa. property markaad ku dhufatidna daaqadan ayaa kusoo baxaysaa. daaqadan waxaa ku qoran system wax badan min kayga qaban doona haddii la idmo. meeshaan u socdo waxa weeye halkan adoo wax kala taabanba waxaad aragtaa Windows edition. anikayga maxaa ku qoran Windows 8.1 Pro Professional ayaa ku qoran. waxaa kaloo ku qoran markaa sanadkii uu soo baxay 2013 ayaa ku qoran ay soo saartay shirkadani. mawduucan socod waxaan box-ka nooma socdo maanta. waxaan socdaa kaliya inaad halka ka eegtid Windows-ka kugu qoran version-kiisa iyo magaciisana soo turtid. halkan waxaa ku qoran sidoo kale Windows 8 ayaa ku duwan computerkayga. laakiin 8ku uu ku duwan yahay maxaa ka dambeeyay waa 8.1 oo version-kiisa ka dambeeyay. marka halkaas version-ka ku qoran ayaad soo sheegaysaa. computerkaaga check-garayso eeg wadadaan maray waxa ku qoran ayaan arday kasta oo ila socda aan ka rabaa inuu soo qoro si aynu isula jaan qaadno. dariiqad aan maray waad ku celin kartaa video-ga mar walba reply aad ku cishan kartaa. wadada aan sameeyay waxaan ku yiraahdaan ku celiyo mar labaad this PC ama my computerka desktop-ka saaran right click si kadib waxaad ku dhufataa markaa properties. markaad ku dhufatidna wakaas uu hore ka soo baxay ka muuqanaya Windows 8.1 ayaana computerka ku duban. adigana waxa kuugu duban soo qor insha Allah taala. intaas ayaan ku soo ururinayaa casharka. su-aasha aan kuu diray casharkan waxa weeye kaliya inaad ii soo sheegtid computerkaaga Windows-ka ku duban inaad soo qortid. waxaan isku dayi doonaa marka si tartiib ah inaan u socdo degdeg aan casharka ka ilaaliyo idinkuna aad ila socotaan. ardayda bilowga ah baan waliba aad u danaynayaa inay si fiican isu dhisaan oo casharkaysan ka caajisin
waxaan u daahinayo oon u tartiib ugu soconay waxa weeye waa adiga ayaan rabaa inaad soo kacdid oo aad conceptiga computerka si fiican u fahantid ardayda iyagu yaqaana ama windowska si fiican u yaqaana ama qaarkood practicalka ciladaha computerka saaraba waxaan isku dayay inay dul qaataan oo casharka waxaan rabaa ardayda hoose inaan soo dhiso ayaan rabaa si tartiib aan u socdo haddii aan leydmo mar kastana waad ii soo qori kartaa wixii comment ama wixii tale iyo tusaale ah waad soo qori karaysaa sidoo kale wixii cilmi iyo aqoon adu aad leedahay laftiga waad soo bandhigi karaysaa oo hal commentiga aad kusoo qori karaysaa si gaara waad ila soo xidhi karaysaa haddii aad jeceshahay inaad bulshadaada wax aad ku dhaantid aad u gudbisid oo ay ka aqbalayiin waad ila soo xidhi kartaa oo pageka aan ku leeyahay facebooka groupka aad igala soo hadli kartaa fursad ayaan ku siinaynaa aad ugu soo bandhigtid ummadda oo aad hawshan aan u hayno bulshada aad nagala qayb qaadatid qof kasta oo jecel inuu bulshada wax u qabto waan soo dhaweynaynaa waan taageeraynaa tiimka Sal Software gacan furan bay kugu soo dhaweynayaan meel kasta oo daafaca caalamka joogaan waa mar kale anigoo macallin Maxamed Jaamac iyo tiimka Sal Software oo idin salaamaya dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.